waa tuma hodan naaleeye hal door Soomaaliyeed oo ay ku weyneyd wadaniyadda jaceylka dadka iyo dalka ay u qabto. shalay oo kale ayay dhalatay 12 July 1976 ayay hodan ku dhalatay magaalada Laascaanood sida muuqaalo badan oo ay duubtay ku sheegtay waxaana ay ahayd hadda 43 sano jir. shalay waxay ku beegnayd maalintii ay adduunka timid isla shalay ayayna adduunka ka tagtay. waa tuma hodan goorma ayay tagtay Canada. sida aan hordhacba idinkugu sheegnay hodan waxay ku dhalatay Laascaanood 1976 balse iyada iyo reerkeeda waxay Canada tageen 1982 xilligaa hodan waxay ahayd 6 sano jir halka ayayna ku soo barbaartay. hodan waxa la dhashay 4 wiil iyo 7 gabdhood. walaalkeed Nageey oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inay ahayd qof qalbiga hodan ka ah. haddii ay qalad ka gasho xitaa mid aysan jeclayn si maskiinimo leh ayay kugu caafinaysaa kadib waxay dhihi jirtay mar dambe ha samayn. hodan waxbarashadeedii hodan waxay dugsiga dhexe iyo hoose ku qaadatay macadka West Hamburg College. jaamacadda Windsor ayay ku qaadatay shahaadada Bachelor qaybta Arts in Communication. 2014 ayay dib ugu laabatay jaamacadda si ay u soo diyaariso waxna uga soo barato saxaafadda iyo arrimaha bulshada. hodan caruurteeda Allah u naxariistay hodan waxay ifka kaga tagtay 2 wiil oo aan midkoodna gaarin 15 sano. in badan oo da'deeda waxay ku qaadatay single mother wax la yiraahdo hooyo kelinimo ku nool laakiin markii dambe waxay isguursadeen siiga hadda qabay oo isna ka mid ahaa dadkii ku baxay mashaqadii ka dhacday magaalada Kismaayo. oraahda naag iska dhig hodan waxay caan ku ahayd kalimadda naag iska dhig oo gabdho iyo hooyooyin badan oo Soomaaliyeed u noqday dhiirigelin weyn. mar la weydiiyay naag iska dhig waxay ula jeedo waxay tiri gabar kasta oo Soomaali ah wax kasta way awoodaa. naag iska dhig waxaan ula jeedaa fadhiga ka kac. aniga xitaa marka aan niyad jabo waxaan isdhihi jiray ereygan. hodan Allah u naxariistay waxay ka timi mid ka mid ah dalalka ugu amniga iyo quruxda badan caalamka ee Canada. waxay u timi sidii ay adduunka u tusi lahayd wanaagga dhaqanka bilicda iyo horumarka guud ahaan gobolada wadankeeda hooyo ee Soomaaliya. hodan waxay safar u soo gali jirtay mar kasta iyadoo aan dhaqaale meel kale ka heli jirin sidii ay horumarka wadankeeda u soo tabin lahayd. waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee furta TV af English ku baxa oo la yiraahdo Interrogation TV. maxaad igu xusuusan doontaan? dardaaran ay jeedisay inta aysan dhiman ka hor waxay tiri ma ahan inaan caan noqdo ama lacag sameeyo waxaan rabaa maxaad ka tagaysaa markaad dhimatid. insha Allah haddii ay dadka xusuustaan waxaan ahaa qof dadka Soomaaliyeed isjecel inay walaalo noqdaan inay noqdaan dad maanta fahmi kara wadankeena haddaan annaga wax ka tarin yaa wax ka taraya. Sheekh Saciid Raaga oo ka hadlaya wanaagga hodan naaleeye Allah u naxariistay waxa uu yiri maalinta qiyaamo haddaan nasiib u yeesho in Allah subhanahu wa ta'ala aan arko waxaan hortiisa ka cadeyn doonaa inaan la kulmin qof ka wanaagsan hodan naaleeye. waxay biili jirtay caruur agooma ah waxay adduunka tustay dalkeeda waxa uu yahay waxay caawin jirtay masaakiinta. Allah u naxariistay hodan naaleeye qof hal door ah oo ka baxay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.